والد هدي نبي نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويل كيسا وكل انتي اي ديلين هيراركي استبس سعودي سيدي الله القرآن كويري وحال بينهما الموج فكان من المغرقين إنك كوين واحد ديلي هيراركاس معها واحد ديلي وحويان هيرار فلسفة ايديولوجيين خلدان وحيابا عقيدة عروتين بربورين كراء أفكار قرعان وسعطاء قضب كاسان كهدلينا channel كي أديك اللي سميه يندغلا سعطاء والد ليجاسي channel فضلا سبسكرايب له مقارنة صادو هشانا ولا الله مسلمين تعالى الشير قرأي بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد قصدي حتى قرآن كسر شكيني والده كسب سند نبي نوح يويل كيسة 10 كلام ما أنت كلا صباحين وحويان هوري waxaan usoo sheegnay u fiirso meeshan waxa taagan aabe the perfect father jecel wiilkiisa raba inuu badbaadiyo meeshana waxa taagan wiil isla quman oo bay'ada uu ku korayay ay ka dhaadhicisay aabihiin oo ka aqoon badan yahay aabuhu uu yeeray wuxuu leeyahay aabe kaalay ku soo biir kuwa ilaahay awaamirtiisa qaatay oo ka kaalay kuwa ilaahay awaamirtiisa diiday yaa bunayar ka macana wala takun macal kaafiriin wiilkan waxaan sheegnay rationality waxalba waan aqaan I got this I'm grown up dhaqankaas wali kor taagan yahay wuxuu yiri waxba ay sheegin ana isbadbaadin kara waayo bay'ada uu ku dhex jira waxay ka dhaadhicisay inuu waxalba garanayo dhinacan haddana waxaan arkaynaa aabihiyo ku soo noqday who will never give up oo dhahaya la caasima al-yawma min amri Allah illa man rahim aabe saad moodaysa ma aha wali dacwadii wada inta waan ka soo hadalnay qodobkan marka ka hadlayna maanta waxa weeye qaybta dambe ee ah وحال بينهما الموج فكان من المغرقين بدوينتي إيا هيراركي إزدبس سعودي أيا ويلكي نبي نوح كيمد وين الدلين أو قال لي مكودنتين لبدا قضب والد قلبك كوهاي مركا مرلبات بانكو حسوسين قضب كي كواد وحو هابان كويري آبت لواقعي أو ربويلكي سإنو بدباديو إيادا أو هيراركن iyo mawjadahan iyo tsunamidan ay saa u soo socdaan uu arkaya wiilkiisa hirarkaas inay dili doonaan haduunan dhageysan uu u dhawaaqay baan ku yiri wuxuu yiri yaa bunayar kab macana wala takun macal kaafiriin kaale aabe ku soo biir kuwa awaamirta ilaahay qaatay ee rumeeyay doonta soo ful yani jid ahaan laga ma wado ee iimaan ahaan u soo ful ilaa adoo gaala hadaad soo fusho waxaadan soo kordhin wiilkana waxaan idhi aabihi inuu ka aqoon badan yahay isku haystaa I know this ana isbadbaadinaya odayahu iga leexo yiri aabuhu kamaniya jabina ku soo noqdaan ku yiri wuxuu ku yiri la caasima al-yawma min amri Allah illa man rahim aabe isbadbaadin kartida soo ful doonta kadib hirarkana dilay wiilki qaybta marka maanta aan ka hadlayno waa laba shay weeye hirarka dilay nabi nuux wiilkiisa iyo guriga ku soo koray marka labadaas aan eegayna koow hirarka dilay nabi nuux wiilkiisa kuwa caruurtanada dilayay waa ka duwan yihiin Allah caruurtana xifdiyo laakiin kuwa caruurtanadu khatar gelin kara waa ka duwan yihiin hirarkaasi biyay ahaayeen tsunami bay ahayd tsunamidaas uu ku qarqoomay uuna ku dhintay gaalnimo ku dhintay inaga kuweena the floods of fitna kuwaas weeye waa hirarka fitnada weeye kuwa dili kara caruurteena waa world view-gooda ama nadariyada ay ka qabaan adduunka inuu khaldamo world view waxaa la yiraahdaa qofku adduunka sida uu arko world view-ga marka la eego study-ga ay ka sameysay Barna BARNA waa akhri kartaan wuu isbedelaa waxaa la yiraahdaa maskaxda bini aadamku daraasadani waxay leedahay 18 bilood markay jirto ayaa waxa ku bilowda world view in yeelato waa 18 bilood world view gaasi uu socdaa marka 13 jir ilmaha markuu gaaro maskaxdiisa waxa maray 13 world view waa waxan maanta liira liberalism feminism eastern mysticism shaytanism postmodernism western humanism secularism waxa soo dhan waa world views waa aragtiyo khaldan waa itijaah qofka diintiisa burburin kara haduuna ka taxadirin sida darteed khatarta ilmaha inuu ay ku jiraan ما هيركن صوص عدي دلي كوي نبي نوح كي نبي نوح أيا دليا إنك خطرت عروتين كوجران وحويان هيركن صعدة فتن كأوي هيرر بيئة معها وهيرر فتن أوي
world viewgooda khaldamaya. world viewga ilmaheen waa inuu noqdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, waa inuu noqdo alaa lahu alkhalq waalamr, amarka iyo maamulka ilaahay baa leh, waa inuu noqdo laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah. world viewyadan kale way khaldi karaan. sidaa darteed qodobka koowaad waalid waxa weeye hirarka caruurteena maanta ay khatarta ugu jiraan waa hirarka fitanka ee ma aha hirar biyo ah oo ah kuwii dilay wiilkii nabi nuux. kuwiin waa fitan iyo ideolojiyad iyo qaab dhaqan khaldan, hab dhaqan khaldan. bishii juun baan hadda ka soo baxnay, adduunka dhan qoomuluudkiiba haysta meel walba oo calankooda. ilmihiina waxan way normalize garaynayaan. qodobkaas waa qodobka koowaad oo ah hirarkaas ayaa burburin kara caqiidada ilmaheena. qodobka labaad, haddaan nidhi 950 sano nebi nuux caalamka ama adduunka ugu yeedhayay an icbudullaha wattaquuhu wa atiicun, tawxiid ugu yeedhayay, ma u malayn waalid wiilkii uu dhalay iyo gurigiisa inuusan juhdi badan gelinin? wuu geliyay juhdi badan. meesha keliya ee ugu fiican, masaajidka ugu fiican, meesha safe space-ka ah ee dad ku badbaadi kareen xilligii nebi nuux xaggee ahayd? guriga nebi nuux buu ahaa. wiilkan aabihii diidayo gurigaasuu ku soo koray. haddii aabihii adduunka dadaal badan geliyey, wiilkiisa dadaal ka badan buu geliyey. saasooy tahay bay-addii baa ka kaxaysatay. qoladii lahaa walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wa yacuuqa wa nasra oo ah ha ka tegina your own way of life, ha dhegaysanina ninkan, ayaa guriga nebi nuux oo meeshii ugu aaminka badnayda kala dhex baxay wiilka. saasuu gaalnimo ugu dhintay. haddii marka meeshii ugu sayfsaneed ee ugu nabadgelyada badneed xagga iimaanka ee diintan ka hadlay ee masjidka ahayd ee guriga nebi nuux ahayd, wiilkiisii ku korayay ee juhdiga badan boqolaalkaasna uu geliyey, ay ka qaateen nimankaas iyo fitankaas wiilka gaalnimo ku dhintay, kuweenna maanta baraha bulshada gelinaya 7 saac ilaa 9 saac inta u dhaxaysa maalin walba, say tilmaamaysa mu'asasada Common Sense Media, ma ka aamin qabtaa waalid? ma u malayn inaan la fidnayn karin oo aan lumi karin? waa la fidnayn karaa, waana lumi karaan. sidaa darteed waalid waxaan rabaa inaan idhaahdo xalku waxa weeyaan ducada oon badan in ilaahay carruurta inoo xifdiyo, iyo communication oo la yeelano carruurta, inaan wax lagu shuban ood adigu wax ku shubto, wixii lagu shubay inaad ka shubto ood wax ku shubto, guriga inay xalqa ka bilaabato. middaas ayaa lagu badbaadin karaa iyadoo khatar walba jirto. waxaan rabaa marka waalid inaan idhaahdo qisadaa waxaan ka baranaynaa in oo kale iyadana hidaayadu ay gacanta ilaahay ku jirto, oo dadaal walba ood samayso waxa weeyaan ilmahan saad ka rabtay uusan noqonaynin. haddii nebi nuux wiilkiisa gaalnimo uu ku dhintay, waxay taasi noo sheegaysaa hidaayada ilaahay gacantiisa ku jirta. innaga juhdiga iyo dadaalka layna faray aan samayno annagoo ilaahay tala saaranayna, laakiin aan ogaano ilaahay baa hidaayada iska leh. carruurteena allaha badbaadiyo. muuqaalkan waalid adaa iska leh. janaalka Waalid Legacy fadlan subscribe leh, ehelka muslimiintaana la sheer garee. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.